حنون كان ما دتك هادو هايستا دتكنا waxaan ka maqlaa ma yeedii geerida Ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafi maayo waxaan idin sheegayaa waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagayo qofka markuu dilayaa waa mar wax bad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa samabadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayay kaliye dhaawacmeen ayaa maskaxdii dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolaanayaa xanuun culus oo waliga la nooleeyay yaan la idin ka dhaadhicin geeri kaliya arintu ma geeri ma waxa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dawladaha waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbow ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimana dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacmina ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraabadiisa geeridiisa iyo magaciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dawladaha China u dhow ay galeen ee inta aanu dadka layn ee uu soo shaabixin inaan gaysano waxa laala wixii awood aan leenahay waxa weeye hadduu na soo galo xanuunkana soo galo bal waxa qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhaqaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta gurokiiba qaali yahay baan u haynaa intaba aan idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xagee buu qabanaya marka waxa weeye intaanan dhibaatada meesha ugu dambaysa la gaarin maxaan qaban karnaa wayna gaarnaa haddaba jaadku muxuu ka yahay waxyaalaha aan ka hadli doono jaadku anuu maanta ka hadli maayo caafimaadka guud waxa uu leeyahay ee hore u lahaa anuu waxaan ka hadlayaa waxa weeye COVID-19 muxuu qayb ka qaadan karaa jaadkan waxa weeye cunto aan daboolayn aan bac lagu soo xirin aan warshad ka soo bixin aan la soo mayrin aan la soo daweyn oo iyadoo nadiif ah qofkii bacdi uu ka furanayo ee waxa weeye waxa lagu dad baa gacan ku soo habeeyay gaari baa la soo cararay dad kala taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabanno ee lagu iibinayo koleyga la yiraahdo maalin qof baa soo maraya uu iska eegayaa uu naqaysanayaa gacantu ku taabanaya uu ka tagayaa adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana COVID-19 buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirus ku keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaadii yaa ku damaanad qaadaya xaaskaaga jecelayd yaa ku damaanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii alla dhex fariisatay yaa ku damaanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaaba la fariisateen mafrish baa fariisatay yaa ku damaanad qaadaya mid idinka midi inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan la soo taaban inta gaari taabanaysa inta socod wax ku taabanaysa taabashadu marka waxa la isku raacay inay tahay sidaha xanuunka ee ugu badan mid baa yiri waan iska meeynaa walaalo waxaan ku sheegayaa gacmaha biyaha markii lagu meeyro sidaad ku cuntay cunto marka dufankii miyay ka baabiin kartaa waa maya xanuunkan waxa ka tirtiri kara oo dili kara oo qura waa biyo saabuun ay wadato way marka jaadka saabuun baa ku meeyraysa kuma meeyri kartid naftaada u baq nafta xaaskaaga u baq nafta ubadkaaga u baq nafta maaragtay dalkaaga iyo dadka jecesha u baq maanta ito mas'uuliyadda ugu culus aan kaga bixi karnaa dalka waxa weeye qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo